norway iyo caalamka intiisa kale afarta cirif ee caalamka ay ku nool yihiin Soomaali caawa qaybta hawada naga dhigeysanaysa barnaamijka arrimaha bulshada oo ugu talagalnay inaan ku soo qaadano qayb ku salaysnayd jabhadda oo NLF taasoo marti sharaf madax sare oo ka socotay ay dalka Norway boqosho ay ku joogeen ayaa nasiib wanaag daqiiqadii ugu dambeeyay aan waqti ku helnay iyagoo runtii ku mashquulsanaa kulan ay la kulmayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway balse dhageystayaal waxaan idin haynaa nasiib wanaag madaxdii oo noo timiyo markaa nala joogto ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka oo NLF Ogaden National Liberation Front maxamed ismaaciil cumar iyo gudoomiyaha hoggaanka arrimaha bulshada maxamed cabdi yaasiin oo fadhiya caawa santarka Samadoon Radio nasiib wanaag kusoo dhawaada martiyeeda qaaliga ahay Samadoon Radio marka hore waa dhowna xasan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qaabilaadana naqaabisheen si aanu يعني أنه إذا كوي في النوع حالة شعب غير بعدين يجي أرمها برشدي يسأل الله يدو وحي كسب سيئه. مركب وهو رئيس قدومية كحيين كجبهة أو NLF أيها قصة كده عشان ذلك النرويج وأنا بفتن يجزه جد مكان لقوم العابه محمد عبدي يعني هذا محمد إسماعيل عمر سؤال جد وهو رئيس أن كويدين لها مدن وحي كهاي إما شاء الله ذلك النرويج عاصمة أوسلو سيكون واحد كسر إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم وحويا وحانو وريجيني أنا جيو وفتي إلى السعودية وكان كعفرمها أباب الكي بالشدة مدن محمد عبد ياسين دال كيو وحانو صومر نيشان دالو كليتو حدنا وحانو هري دور دالو كلينا نمرنو أنو ربني إن أنو لقرا من دولتها أن صومر نيشان دالك جرماني سويسرلاند فنلند دالك سويدن marka iyo Norway inaan dawladahaas mas'uuliyiintooda hogaamada iyo cidii aan ka arki karayno xisaabta siyaasiga ah inaan la kulanno isla markaa inaan jaaliyadaha shacabka Soomaalida ogaadaya ee dalalka ku nool inaan iyagana la kulanno aanu isfikrad weydaarsano isla markaana la socotiin xaaladda dalka ogaadaya iyo shacabka ogaadaya wuxuu ku sugan yahay mudane waxa aan ku weydiin lahaa su'aasheeda kala ay tahay ururkan oo NLF waxa uu ka howlgalaa xoogiisa dalka Itoobiya dagaal culus baad waxaad kula jirtaan dawladda Itoobiya in badan marka laga soo bilaabo 8 xaalka ururku sida uu ku sugan yahay maanta runtii ururka NLF kama howlgalo dalka Itoobiya waxa weeyaan dalka ogaadaya ayuu ka howlgalaa oo aan ahayn qayb Itoobiya ka tirsan Itoobiya way gumaysataa dalkaas wuxuu soo maray ururkan ilaa 1984 waqtigii 1984 dagaalka hadda ay oo NLF hogaaminayso uu soo bilowday walow halganka shacabkaas uu sii horeeyay ilaa qarnigii 16aad hase ahaatee wuxuu dagaalka hubaysan ee gacan ka raadalka bilaabay 94 intii kale oo dhan abaabul iyo istiyaarin buu ku jiray wuxuu soo maray marxalado aad u kala gedisan hadda waa wuxuu dalka ogaaday oo dhan ka dagaalamayo kana gacan sareeyo cadawga gumaysatada Itoobiya wuxuu ka dagaalamayaa yana ilaa ma aragtay galbeedka shishe ee xataa ma aragtay qayb ka tirsan dalalka aan deriska nahay iyo ururada aan deriska nahay Oromada iyo sidoo kale ay iska shadaan waxaanu ognahay oo xaqiiqdu ay tahay ururkan soo dagaalamay cadawga iyo gumaysta haysta inta sana uu kusoo dagaalamayaan wada ognahay xaqiiqdu sida ay tahay ururkan maanta dadku badan waxay yiraahdaan waa kala jaban yahay waxaanu maqlay gudoomiye ku-xigeen in maamul goboleedka gelinka shanaad ay loo magacaabay madaxweyne taasna ay warbixin badan ka muujiso kala daadnaan iyo kala dhac ka dhex yimaada ururkan ogaadaya iyo howlgalkiisa taas wuxuu noo sheegi kartaa taasi waa dacaayadda beenta ee cadawgu uu fidinayo waxa weeyaan qariska tuurnimadiisa iyo in uu dad aan awal horeba dadka Soomaalida ogaadaya aan u tirsanayn oo qaarkood ay beerta ku jireen ama dhul jiifiye iska ahaayeen qaarkoodna ay ahaayeen dabaqoodhigii isaga wardoonka u ahaayay dibadaha u soo diray shaarka oo NLF intuu u geliyay inuu yiri waa garab ka tirsan oo NLF taasoo uu rabay inuu raayada caalamka iyo sharciga dadka shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan oo ku khaldo laakiin runtii waxaan u aragnaa
dheriga maxaa karka ka keenay yani kuleylka inuu meel qabsada uu leeyahay waana guuldarrada ka haysata dibad iyo gudaba halka muxuu ahaa horumarka ay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya ka keentay markaan idhaahdo cabdi maxamed cumar yaa taqaanaa cabdi maxamed cumar waa midka dabadhilifka xun ee Ethiopia u shaqeeya ee aan damiirka lahayn ayaa cabdi maxamed cumar la yiraahdaa annagu laakiin waxaan ahaa kaabaha dabaqoodiga maamulku sheega jigjiga ee Ethiopia halka dhigatay taasoo jirto aan ognahay waxa jirta qurbaha jabhadan hawlgalkeeda dhaqaale markii la sheego iyo taageeradeeda ugu badan qurbuhu ka yimaada qurbaha marka la yiraahdo xaqiiqdu siday tahay oo aanay adigu aan ognahay kala jab waa jira ummadii qaar raacday dabaqoodiga iyo dadka adigu sheegaysa ayaa jira taas maxaad kala tahay markasta oo dagaal gobonimo doono xaq lagu jiro ummad kasta waa laga helayaa canaasir ka soo horjeeda halganka oo cadawgu ama iibsaday ama aan iyagu u dhoodo damiir balahayn oo halganka ka soo horjeeda sida inahaas oo kale meel walba way jiraan sida ay caalamkaba tahay laakiin shacabka reer ogaadeeya uu midaysan yahay dhammaantiina يعني هدي أنا هذا بقول كيف سجالي سجاشن وحو تاجر سيء هالجن كشعب كرير وقادية ثانا وحامر خاتك إن عن وقت جا مرحلة الوجرو إجاز كأفريقيا عالميا إن جبهة ودني حرية وقادية أي نقولها أي منطقة كنا لون يسجادين هذا شعب كتاجر سنين مدة كلاتو معها إنه يقربها وكيمادو نقالها وين يتاجر وين وهالجن كصعده وحكي ماذا جدها والله فدبرت لكن قربها جاليدها جوجو أو كنتي هذا فربضن حقنا له وتغير ريال وحكت تغيران مورالي معنويا يو عالم كله سعوديين هي هل إنك شعب كرير وهذه هل كل هذا وحنا مقلنا هجاميال كل اسمك عبي إسلا جبهة هجاميها ما تجرى وعملك وانا ودبنا هجاميها قدومية أن أدميرال محمد عمر عثمان waxaa kaloo la og yahay ururkan ONLF heshiiskii la dhigay 8 oo filayno waxa waxa lagu heshiiyay sharci ahaan la qornay in 4 sano shir la qabto lagu dooranayo gudoomiye cusub waxaan wada ognahay ma aysan dhicin kadib 1998 taas wuxuu nagu sheegi kartaa waxa weeyaan waa run waxa weeyaan markii dastuurka waxa noogu yaalay oo shirweynihii سجاشني وتضبادي سجاشني سيدي هرانتي دي لقفتي وسي أنسحيي أفرت السنة بإن مر لقفته لكن قراها الدحاء أيا لبدي كوني لبدي بقول فريستي وحيد هذين أبو بدنان ويران أفرت السنة بإن مر لقفته أين ظروف تان حكومة إسا مركا ظروف تجيس كأفريقيا يعني وحويان مركي سوروبي كريس أو إنه أسامحه أي شروينا هلا قرنا يا إلا حدنا ظروف تمين سامحين وحاكم مهم صناعي إن دجال كالحوتية هوشنا عين ستاجين شرويني سيدا سيلو يري مركا قدوميها جاكدا هيستا أمريكا dadka qaarkood waxay yiraahdaan ma aanu aqoonsanin maadaama winda muddo oo haystay doorasho cadna uu soo dhigay taas wuxuu nagu sheegay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya gudoomiyaha uu yahay way aqoonsan tahay wayna og yihiin duruufta keentay isagaana gudoomiye waa shacabka reer ogaadeeya ee taageersan halgankana taasay ay ku taageersan yihiin og yihiin kuwa sidaa oranaya hadday yiraahdaan iyo haddii kale wax muraad oo ay ka leedahay jabhaddu ma laha waa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya oo shacabka halganka shacabka geesigu u dagaalamayo hogaaminaysa ayuu gudoomiye u yahay nabad markaan idhaahdo nabad dagaal baad ku jirteen in muddo ah jabhadan waa la ogyahay adduunka caan weeye in muddo ah dhimasho leh dhibaato leh dhiig baxay leh dhaqaale leh nooc kasta leh nabad marka la yiraahdo ma isku daysan inaad nabad la qaadataan dalkan aad dilaysaan nabad waxa weeyaan nin la gumaysta ugu baahan anagu nabadda markaan weynay oo ayna nabad aanan annaga mooye aanan anagu haysan dadkii kalena haysan nabad ma aha nin la gumaystaana nabad kuma jiro yani nin markaan ka hadlayo qof dad la gumaystaan nabad kuma jiro marka waxaan u dagaalamayno waa xorriyad iyo nabad waarta inaan ku noolaano waayahay bal sidoo kale waqtiga aad noogu yar awgii waxaa martida nala joogta kamid ah nala jooga gudoomiyaha hoggaanka abaabulka arrimaha bulshada ee ururka ONLF
ayaa isla marti ku ah soo dhawow sidoo kale maxamed cabdi yaasin ururkan iyo howlgalkiisa xaruntiina waa xagee baad ka howlgashaan waxqabadkiisuna sida uu yahay جماعة الوطنية حرية وغادية هقول كذا يا حرمتين وحوي وجودها وغادية هل كصار صلي كذا رسمي غيّه أنت كلامنا من هو هقول ملو هذا مرك حرمت وجودها وغادية وأنا حرم جورت ما دام الدجال الوجرو والله ما أروك هذا وقوم بالهبلة واسجودها وغادية جفت دجال كوجرتو حرم مدونة وحلا جورتا أبابلك إيوه الحريق قربها dadka joogay badana ay hawsha ay ku socoto sidaan ognahay shaqooyinkaaga ama shaqada aad qabato ma qosaysan dadka qurbaha joogo hawlahaas ma abawsha sida aad u sheegtay horta abaabulkii arrimaha bulshada gudaha iyo dibadda meel walba waa qaabilsan yahay dibadda haddaan marka kaaga soo qaado aad baa abaabulka u jira waxaan kuu sheegayaa dowladda ingiriiska waxaa la odhan jiray caalanka Britania qorraxda kama dhacdo maanta caalanka ONS bay qorraxdu ka dhacdo adduunka qaaradaheed oo dhan way joogtaa in ka badan 68 jaaliyadood ayaa dibadda ka abuuray oo ogaanaya dibaddeeda oo kaliya intaasina qaaradaha adduunka ku kala yaalin waxaa xataa suuragal ah daqiiqad ayna jaaliyad ogaanayeen ayna abaabul iyo hawlgal ku jirin inayna 24 saac soo marin way 28 bishan oo maalintii shalay ahayd shir baad ku qabateen caasimada dalka Norway hadallada aad khudbada ay ka jeedisay waxa kamid ah in dadka Soomaalida ay aad u taageeraan jabhadan taasoo keenaysa baa tiri in Soomaalidu hadii la taageero jabhadan ay noqonayso mid iyadana sircado waxtar u leedahay hadalkaasi dib ma ugu noqon kartaa hadalkaasi waa xaqiiqo weeye waxaan leeyahay horta Soomaalida markuu horeysa maamaha Soomaaliyeed baa jirta waxay tiraahdaa doqon qofacday meel laga raacay samooga horta waxaan ii sheegayaa oo aan qarsoon oo cid walba ogtahay qarankii Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed maanta meesha ay taalo ay isweydiinay maxaa dhigay inta dhigtay waa cadawgeedii soo jireenka hay Ethiopia kiibaana maanta meel walba aad ogtiin inuu laalaan iyo wax aan la garanaynin oo kale uu ku wada maamulo waad ogtiin mas'uul aan maanta Ethiopia laga soo sameeynin inuu Soomaali maanta soo horistaay karin marka la saadaalinayo ninka mas'uulka ee Soomaaliya inuu mataqaana guuleysanayo waxa hadda la yiraahdo Ethiopia sidee u taageersan marka nin la yiri say cadawgiisi u taageersan yahay sidee uu guul ku gaari karayaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa in qadiyadoodu tahay meesha laga dilayana ay tahay Addis Ababa ay tahay meesha ogaaday lagu gumaysto cadawgood inay meel la soo jeedsadaan way FM 99.3 wada FM aad naga xiriirtaan habeen walba cad Samadoon radio ay aad naga dhageysanaysaan khadka telefoonku waa uu noo suurtagal ilaahay caawa waqtigu aad noogu yar ayaan naga soo wici karin khadka telefoonka marka emailka samadoon@albakrol.com hadii aad noogu soo diraysid su'aalaha kooban aanu ka jawaabi karno waa noo soo qori kartaa khadka telefoonka aad baan ugu xunahay inaan naga soo gali karno caawa su'aalaha laga weydiin karin anagoo isku dayna markaa inaan waqti kale aanu helno la kulano odayaashan day suurta gasho aad weydiisaan waxa aad idinku rabtaan balse caawa aniga ayaa isku dayay su'aalaha qaar kamid ah inaan weydiiyo Soomaaliya aan ugu noqdo jabhadan sida la og yahay dalka Soomaaliya burburkiisa dib weyn baa ka soo gaaray gudoomiye ku xigeen jabhada ONLF su'aashiidu sidan ay u dhigmaysaa haddii dalka Soomaaliya uu ahaan lahaa dal jiro xukun loo helo dibna u dhismo si dhaqso badan ma suurto geli lahayd caawinta iyo isdaba joogga iyo daba socoshada iyo ogaanshaha iyo cabsi in laga qabo marka aad ku heshaan guul ka dhaqso badan maanta tan aad joogtaan runtii taas waa xaqiiqo jirta waxa weeyaan Ethiopia waxyaabaha ay u sii dhaga adeegayso dhibaato kasta oo ka soo gaadhay dagaalka iyo darbaaxooyinka gobonnimo doonka jabhada wadaniga xoreynta ogaaday waxa ugu wacan waxay og tahay dhibaatada Soomaaliya ka jirta iyada oo aan taageeraba laga helin ayay Soomaali jiritaankeeda kaliya tay gargaar noqon lahaa oo Ethiopia candhuufteeda liqi lahayd haddana waxa weeyaan Ethiopia waa ka adkaanay laakiin waxa weeyaan Soomaaliya ku gudban markay Soomaaliya qayb iyo xukun oo maamulo iska warlooda oo iyada ku wada xidhan ay ka samaysay ayay ku sii cimri dheeraynaysaa taas oo cimri dheeraynaysaa iyaduna waxaad moodaa inay quusatay karinal adahay oo tabar u laadahay hatta Soomaaliya waxay kala qaybisaba iyaduna maalin dhow waxa imanaysa Soomaali oo qarannimadeedii soo noqotay halganka shacabka roogaaday ugu jiro xorriyadiisa uu guuleysanayo
waxaan isla leenahay bal dadna dhegeysta jira ay gudoomiye ku xigeen aanu challenge siino marka hal iyo laba qof oo marka su'aal aanu ka qaadno khadka telefoonka waxaan filayaa qof Soomaali inuu ku jiro marka su'aal ama fikrad uu qabo habeen wanaagsan qofka aad tahay iyo fikradda ama su'aasha aad qabto وعليكم السلام سلام الله way waxaan weydiinayaa madaxda sharafta leh ee oosan ugu soo booqato marka ugu horeysa waa mahadsantihiin marka labaad waxaan idinkaga mahadcelinaynaa mar labaad inaad been ka ogyihiin shacabka u sheegaysa inaad maanta caawa si life uga daba tagteen waxaan leeyahay kale oo ku baraarujinaya inaysan dadaalka ay u hayaan ummadda aysan ka seexan haarig iyo habeen oo u taagnaadaan qadiyadda ogaadeen iyo difaaca sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ee ogaadeen way way aad baad u mahadsantahay iyaguna kulli waxay ku leeyihiin waad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa mid kamid ah dhegeystayaasha iyo goor soo waca waxa aanu filaynaa waqtigan aad ugu yahay bal eegno qofka kale aanu siino chance marka habeen wanaagsan Samadoon radio ku soo dhow halo hello assalaamu calaykum soo dhow Solo